jooga koob iyo toban xildhibaan baa jooga toddoba xildhibaan gacanteedan kula soo baxay samaroonka jooga aad sheegayso muxuu xildhibaan ula soo bixi waayay xildhibaanadiisii aaw afar xildhibaan buu leeyahay ma ila tartami karaa ninkaas taliyaha guud ee ciidamada Somaliland Saraakiil guud Nimcaan Yuusuf Cusmaan oo shaaca ka qaaday in 48 saac uu qabanayo ciidamada madaniga ee shacabka gudabeersay ay hubka qaatay isagoona shaaca ka qaaday haddii hubka ay ku soo wareejin waayaan ciidanka Somaliland tallaabo cad laga qaadi doono waxaan idiin soo gudbin doonaa isagoo sidoo kale ka hadlaya weerarkii ka dhacay xalay ilaa iyo saaka qayb ka mid ah gobolka Awdal iyo sidoo kale Gabiley duleedkeeda ciidamadii ka soo goostay Somaliland oo ku tilmaamay inay yihiin kuwo doonaya in ay qalqal galiyaan amniga Somaliland kana soo jeeda gudabeersay waxaan idiin soo gudbin doonaa xogta arrintaas madaxweyne Ciro oo qiray in ciidamada Somaliland xilligan ay wadaan tallaabooyin weyn oo lagu xakameynayo amniga Somaliland taas oo muuqato in xaaladdu waji kale yeelanayso sidoo kale waxaan eegi doonaa odayaal dhaqan oo ka soo jeeda beelaha gudabeersay oo goorweed shir degdeg ah isugu yeeray dhammaan shacabka iyo sidoo kale dhaqanka iyagoona ku kulmi doono magaalada Saylac oo u muuqato in xilligan la doonayo in bandhigii lagu hor istaago kulan weynana halkaas ay ku qabsadaan haddaba sidee suuragal ku tahay ma Saylac iyaga u badan gudabeersay mise sidoo kale Ciise xogta ayaana arrinkaasi ku eegi doonaa sidoo kale Ciise oo ku doodayay in wax shira aan lagu qaban karin gudaha magaalada Saylac dadaaladii ugu xoogganeed dhankooda iyagoo wada aan eegi doonaa sidoo kale hubka tirada badan ee ku ololaya qayb ka mid ah Awdal qodobadaasi sidoo kale qodobo kale ayaynu kusoo qaadan doonaa barnaamijyadeedkeena daawadayaal ugu horreyn subscribe inoo saar kanaalkan aynu ku bilowno taliyaha guud ee ciidamada Somaliland Saraakiil guud Nimcaan Yuusuf Cusmaan oo goorweed ka hadlayay shaqooyin 48 saac ugu dambeysay ka dhacay gudaha gobolada Awdal iyo sidoo kale Salal wuxuu tilmaamay in xaaladda halkaasi ka tagan ay taaminay dul qaadan dooneen isla markaasna tallaabo cad ay qaadi doonaan ciidamadu isagoo si gaar ah isu dul istaagay shaqooyin saaka ilaa iyo sidoo kale xal laga maqlay qayb ka mid ah Gabiley duleedkeeda ciidamadii ka soo goostay Somaliland ee soo gaaray qayb ka mid ah gobolka Awdal ee ka soo jeeda beelaha gudabeersay wuxuu si cad u tilmaamay ciidamadaas inay yihiin kuwo ka shaqeynaya amni darrada Somaliland sidoo kalena ka soo horjeeda awaamiiro kala duwan oo hore loo siiyay iyadoona sidoo kale xogta intaasi ku sii daray in tallaabo cad laga qaadi doono cid walba isku dayda qalqalgelinta amniga Somaliland sidoo kale wuxuu sheegay in hub iyo gaadiid ay qaranka Somaliland ay lahaayeen ay la baxsadeen ciidamadu degdegna loo faray inay dib u soo celiyaan taasoo uu tilmaamay in ay ka waantoobaan arrimaha ay ku dhaqaaqeen sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Somaliland wuxuu si cad u sheegay inay ka wada hadleen xaaladan iyo tallaabada ay qaadeen ciidamadaas oo isagoo hore kaga ahaa damiin maadaama isagoo qaramiyay ciidamadii gudabeersay oo horey hubka u sitay Muuse Biixi Cabdina gadood xooggan horey kaga muujinaya si yeeshee markan Cabdiraxmaan Ciro dhibaato culus ku ah sida isagoo aaminsan yahay xukuumadda soo socodkeeda beelaha gudabeersana ay aad kaga tabanayaan ciidamada Somaliland wuxuuna sheegay in haddii tallaabo u qaadi waayo madaxweyne ku-xigeenka dhankooda ay qaadi doonaan 48 saac wax ka yar dagaal toos ah oo lagu ekeyn doono meel walba oo lagu arko sida uu tilmaamay nin qorisito oo kasoo jeeda beelaha gudabeersay waana hanjabaadii ugu cusleed oo kasoo baxayso Nimcaan Yuusuf Cusmaan taliyaha guud ee ciidamada Somaliland oo ah Saraakiil guud isla markaasna doonaya xilligan in dhaqdhaqaaqay sidoo kale galka dagaal ee ka dhanka beesha gudabeersay isagoo la wareegay isla markaasna oo cawaaqib xumo ka dhex abuuro gobolkaasi Awdal iyo sidoo kale Somaliland waxaana u muuqata dadaalada soconayay sidoo kale arrimaha la doonayay inay yihiin kuwa isku siksan isla markaasna Somaliland gaar ahaan xukuumadda Ciro oo hogaamiya Cabdiraxmaan Ciro isagoo laftiisa oo si aada xilligan u doonayay in Nimcaan uu la wareego galka dagaalkaas isla markaasna uu hogaamiyo taasoo la doonayo in gabi ahaanba lagu tirtiro meesha gudabeersay hubka ay sidato sidoo kalena Somaliland iyadoo ay gacanta ku dhigto halka gudabeersay ay aaminsan yihiin in isaaqoosan wax ka qaadi karin isla markaasna tallaabo walba oo ay isku dayaan ay ka hor istaagi doonaan waxayna saraakiil dhowr ah oo kaga jira Somaliland ugu baaqeen sidoo kale in sidii xalay ay sameeyeen ciidamada fara badan oo lagu qiyaasay ilaa iyo 400 inay iyaguna sameeyaan kuwaas oo ilaa hadda qaarkood ku haray sidoo kalena waxaa la tilmaamayaa sida xogaha hoose ay sheegayaan in qaarkood ay qorsheynayaan saraakiil ee ciidamo badan oo muddo dheer ka mid ahaa Somaliland markan ay ka soo gaan maadaama xaaladdu meel xun ay marayso ciidamadii Somalilandna aad loo kala takooraya sidoo kalena qabiilo ay dhex galeen
taasoo lagu tilmaamay in xaaladda hadda jirta ay tahay mid uu u sababu yahay Cabdiraxmaan Ciro oo tallaabooyin kala duwan qaadayay, islamarkaasna ay tilmaameen beesha Gudabiirsi inuu ku jiro rafashadii ugu dambeysay oo uusan xilligan waxba samayn karin. Sidoo kale waxaa jirta in iyaguna dhankoodu ay ka jawaabeen beelaha Gudabiirsi shir degdegana ay isugu yeereen gudaha magaalada Saylac ee gobolkaasi Soomaaliya Somaliland ula baxday. Shirkaas waxay tilmaameen in lagu faaqidi doono dood dheerna looga yeelan doono waxa kaga aadan hadalladan kasoo yeeray Somaliland, si gaar ahaaneed doornimada maanta ee ka yimid taliyihii guud ee ciidamada Somaliland Saraakiil Guud Nimcaan Yuusuf Xasan oo tilmaamay in isagu 48 saac uu qabanayo beeshaasi sidii hubka ay usoo wareejin lahayd, sidoo kalena ciidamadii ka baxsaday Somaliland iyaguna sidii loo ciqaabi lahaa tallaabadooda ay wadaan, taasoo dad badan ay isweydiinayaan suuragalnimada arrinkaasi sida ay ku suuragali karto. Hase yeeshee waxay shirkani tilmaameen in noqon doono mid weyn oo xitaa shacabka kasoo qaybgali doona siyaasiyiin dhaqan iyo sidoo kale aqoon-yahano iyo cuqaal kana dhici doona magaalada Saylac, waxaana tallaabada sidoo kale loo fasiri karaa mid lagu joojinayo dhaqdhaqaaqa beesha Ciise ee gobolkaasi Awdal, gaar ahaan magaalada Saylac ay ka wado oo loo arkay in Saylac ay la wareegayso maalmaha soo aadan haddii sidan ay wax kusii socdaan. Hase yeeshee tallaabo degdega oo soo kabasho ayay qaadayaan Gudabiirsi ku aadan shirweyne halkaas lagu qabto, halka dhinaca kale waxaa la sheegay in gadoodkayga xoganeed beelaha ay ka muujinayaan Ciise sidoo kale Isaaq tallaabada ay qaadaysa Gudabiirsi ay ku qabsanayso gudaha magaaladaasi shirweyne, halka dhinaca kalena Ciise loo diidanaa maalmihii ugu dambeysay bandhigooday buug xeer Ciise oo isagoo meelo kala duwan hore loogu soo bandhigay sida dowlad deegaankii sidoo kale gudaha dalkaasi Jabuuti, waxayna dad badani ku sifeeyeen xaaladdu inay kasii dari karto islamarkaasna wajiyo kala duwan yeelan karto. Waxaana dhinaca kale jirta in dhaqdhaqaaqii socday sidoo kale dadaaladii maalmihii ugu dambeysay la waday uu ahaa mid fashil kusoo ilaanayay maalmihii ugu dambeysay. Dhinaca kalena iyaduna waxaa jirta in taliyihii ciidamada Somaliland dhankiisa isaguna uu qaadayay tallaabooyin waaweyn oo lagu xakameynayo dhankaasi, sidoo kale xukuumadda Ciro iyo tallaabooyinka ay qaadayeen maalmihii ugu dambeysay. Sidoo kale iyaduna waxaa intaasi sii dheer in isku dhacyo u dhexeeyo madaxweyne ku-xigeenkii Somaliland iyo sidoo kale taliyihii ciidamada ay xilligan soo ifbaxayso, islamarkaasna khilaafaadkooda salka ku haya Gudabiirsi sidoo kale dagaalkooda oo sida loo wajahayo dad badan ay su'aalo ka keeneen, islamarkaasna tallaabooyin guud maalmihii ugu dambeysay ay socdeen. Waxaana la tilmaamay in Nimcaan Cabdiraxmaan Ciro oo isagoo u xilsaartay dagaalkaas, halka dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenku uu diidan yahay in isagoo loo xilsaarto dhibaatada halkaasi ka taaganay sidoo kale dhaqdhaqaaqyada maalmihii ugu dambeysay ka soconaya gobolka Awdal. Waxayna si guud beesha Gudabiirsi laftooda iyagu qabaan in taliyaha guud ee ciidamada Somaliland uu qayb ka yahay ragga horinaya colaadahan kala duwan ee maalmihii lasoo dhaafay sida aadka looga digayay, iyagoona tilmaamay in loo kala bixi doono Isaaq iyo sidoo kale Gudabiirsi, halka dhinaca kalena ay joogaan beesha Ciise oo iyagu maalmihii ugu dambeysay dadaallo aad u xoogan bixinayay, gobolkana u muuqda kuwo kusii faafaya walaaca ay ka qabaan Gudabiirsi uu yahay mid marmar ka dambeysay sii kordhayay, taasoo dad badan ay ku sifeeyeen mid xaaladdu sii kicin karta islamarkaasna wajiyo kala duwan yeelan karta. Sidoo kale iyaduna waxaa intaasi sii dheer in odayaal dhaqan oo kasoo jeeda beelaha Gudabiirsi in xiriiro toosa ula soo sameeyay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, isaguna kala hadlayay dejinta xasaradahan taagan iyo sidoo kale go'aamanka ay qaadan karaan oo ah kuwa halisooda leh. Hase yeeshee waxaa jirta in ay arrinkaasi ganafka ku dhufteen odayaasha dhaqan ee Gudabiirsi, iyagoona sheegay in ilaa Ciise ay isaga baxayaan gobolkaasi Awdal, sidoo kalena meesha laga tirayo buugga xeerka Ciise maabkii lagu qaro ee sheegayay in gobolka Awdal iyo gobollo badan oo Somaliland ah iyagoo ay leeyihiin inay sii wadi doonaan dagaaladooda iyo sidoo kale hub urursigooda, taasoo xaaladda sii xumeyn karta islamarkaasna god ku ridi karta nabadeyntii dad badan ay filayeen inay ka dhacdo gobolkaasi Awdal. Guud ahaan daawadayaal naga intaa barnaamijyadeedkana subscribe inoo saar nabadgelyo.